waana ku maxkamadeyn doonaa cid walba oo hubkaasi illegalka inay dadka shacabka ee reer Soomaaliyeed inay ku laayaan ama ay shabaab gacanta u galiyaan ama Jubbaland lagu dilo loogu talagalay ama siyaasiyiinta reer koonfureedka lagu caburiyo maxkamad baan ku soo saari doonaa horta hanjabaadda warqadda uu ku soo saaray madaxweyne xasan sheekh wadamada aan jaarka ka nahay haday noqon lahayd badda cas iyo wadamada kale bariga aan jaarka ka nahay haday noqon lahayd Ethiopia iyo Kenya labadaba horta anaga uga sumcad badan madaxweynaha dawladda federaalka iyo xukuumaddiisa waa maamulka Puntland oo ka jawaabay warqadii ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya ee ay kaga hadleen markabka u afduuban maamulka Puntland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad soo saartay waxa ayna ku faahfaahisay xogta markabkaasi waxa dawladda federaalka ay ka ogeyd halka uu ka soo shiricday meesha laga leeyahay waxa uu waday iyadoo dhanka kale tana cadaysay in ay tallaabo ka qaadi doonto maamulka Puntland ama kooxda afduubatay markabkaasi waxa dhanka kale ay dawladda federaalku xustay sharciga ka yaala ama qawaaniinka u yaala maraakiibta adduunka haday noqoto maraakiib ganacsi iyo haday noqoto kuwa sharciyada ama say doontaba ha noqotay maraakiibta adduunka ee u kala gooshta sharciga ka yaala waxay sheegtay marka dawladda federaalku in markabkan uu watay calanka jasiiradda Columbus Mareykanka Turkigana uu ka imaaday dawladda federaalkana uu socday oo Muqdisho uu rabay inuu ku soo xidho waxa uu wadayna wax sharci ay ahayd shifa sharciyana uu ku imaaday Puntland marka iyadoo oo arinta ka jawaabaysa ayay sheegtay in hubkan uu waday markabku uu ahaa hub lagu waxyeeleynayo ama lagu carqaladeynayo amniga Puntland iyo maamulka gaar ah la doonayo bay dhaheen in lagu cuburiyo siyaasiyiinta mucaaradka waa sida iyagu ay leeyihiin siyaasiyiinta mucaaradka lagu cuburin rabay oo lagu dhibaateyn rabay bay dhaheen hubkan waxa weeye markabku uu waday haddaba waan dul istaagi doonaa bal xogta markabka iyo halka uu ku dambeeyey iyo warqadda dawladda federaalka ka soo baxdayba labadaba waan dul istaagaynaa soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saara aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay war ka soo saartay markabka dhowrka maalmood ee ugu dambeeyay u afduuban maamulka Puntland ayuu markabkaasi u afduuban yahay muddo dhowr cisho ayuu afduuban yahay oo markabkaasi uu afduuban yahay maamulkaasi Puntland haddaba dawladda federaalka qoraalka ay soo saartay ayaa u dhignaa sidan Muqdisho 23 July 2025 dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay cabaareynaysaa afduubka iyo xadgudubka lagu sameeyay markabka markabku wuxuu waday bay dhaheen markabku wuxuu ku sii jeeday dekedda Muqdisho isaga oo siday qalab ciidan loona waday xarunta tababarka ciidamada Turkisom si waafaqsan heshiisyada iskaashiga difaaca ee u dhaxeeya bay dhaheen Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda dalka Turkiga sixnadu waxay ku socotay baa leeyahay sifo sharci ah oo si buuxda u waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah marka laga soo taga baa leeyahay markabka ciidan ama qalabka ciidan markabku wuxuu sidoo kale siday bay dhaheen badeecooyin ganacsi oo ay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed qodobka 54 ee dastuurka ku-meelgaarka ah wuxuu dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ah ugu xil saaraya difaaca badda bariga ee dalka Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Soomaaliya sida ku cad bay dhaheen xeerarka caalamiga ah gaar ahaan heshiiska qaramada midoobay ee sharciga badaha ee UNCLOS andane ee 1982 fal kasta oo lagu afduubo markab ganacsi ama mid sharci ah oo galaansho uga haysta bay dawlad
waxay hoos imaanaysaa qeexitaanka burcad badeednimo waana dembi ciqaabeed si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya waxay dalbanaysaa halkaas si fiican u dhageyso in si degdeg ah oo shuruuda shuruud la'aan ah loo sii daayo markabka waxay uga digaysaa Puntland sii socoshada dhammaan howlgallada sharci darrada ah ee ka socda xeebaha ku aadan maamulkeeda isla markaana waxay ugu baaqaysaa in ay kala shaqayso dowladda federaalka xaqiijinta marin ammaan ah oo fududeeya isku socodka maraakiibta ku shaqaysa ogolaanshaha dowladda Soomaaliya waxay saddex cadaynaysaa in ay ka go'an tahay ka hortagga falalka burcad badeednimo iyo maxkamadaynta shakhsiyaadka iyo kooxaha ku lugta leh burcad badeednimada Puntland arrinta ku dhaqaaqday horeyna waan idinku sheegay dowladda federaalka say doontaba ha yeesho dowladda federaalku waxay doontaba ha soo qorotee falkan waa fal burcad badeednimo weeye waa burcad caadi ah burcad badeed waaye ma aha waxa weeye fal ciyaara maaha dowladdii 30 sano jirtay ee hadda u dabaaldegaysa waxa weeye sanad guurada 27aad mise 28aad ee hadda hooyadii federaalka ahayd ee maamulkii ugu facweynaa ahayd ee ku faantamaysay ee la rabay weliba inay ummadda Soomaaliyeed war ku amaana aan lahayn amaanta weyleeyihiin aan lahayn waxay ka kacday inay iyadii maraakiibtii badda maris ay afduubato oo hubkii iPod oo badeecadii la boobo bal ceebta dhacday fiiri baalinba meel baa lagu soo joogsan waxaan arkayay oo aan aad iyo aad u arkayoon lahaa warsay noqon doontaa markuu Saciid Cabdullaahi Deni iyo golihiisa wasiiradu ay weerar ku qaadeen maamulkii walaaladooda ahaa ee iyaga naftirkooda hantida iyo dhiigaba uu kaga baxay iyo waqtigaba uu kaga baxay markay weerar ku qaadeen oo ay ishortaageen oo ay dhaheen waxa weeye dhamaystiro loo samaynayo SSC ma jiro wax SSC la yiraahdoon aqoonsanahay ma jiro SSC dhulkay sheeganayaan waa dhul Puntland markay dhaheen oo xabad ay dhalinyaradii kala hortageen Somaliland ay heshiis la galeen markaas baan waxaan idhi war meesha waxbaa ka soo socdeen furaha laga qaad baa jiray furaha laga qaaday ninkana halkay ku dambayn doontaa baa idhi halkay ku dambayn doontaadi maanta maxay inii muuqda maanta waxay inii muuqda burcad badeed in maraakiibtii marinka marays maalinba ku la soo qabsado oo waxa weeye burcad badeed caadiga ahayd ba ay noqdaan ciidamadii badda Puntland waa ayaan darro inteeda leeg weeye runaantii wax loo dul qaadan kara maaha waxaan ka filaynay reer Puntland ma aha wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay filaysay maaha waxaan leenahay dowladda federaalkana go'aanka ay qaadatay ee ku xaqiijisay markabkaas iyo baaqay dirtayba way ku saxanta haddii aysan dhihinba dagaal baan qaadaynaa oo weerar baan qaadaynaa oo waxaan weeraraynaa Puntland haddaysan dhihin way fiican yihiin sababtoo ah falkan dowlad u dul qaadan lahayd ma jiro Puntland waa maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka xasan sheekh baana madaxweyne u ah wixii siyaasada oo la isku hayana xaq bay u leeyihiin inay gogol u dhigtaan ama isagu uu dhigo xaq bay u leeyihiin inay dhahaan tabashada baan qabnaa laakiin xaq uma laha shuruuc iyo sharci dowlad federaal ay leedahay in maamul goboleed uu ku xadgudbo oo burcad badeed intay noqdaan ay meel u dhigtaan oo isbaara ay dhigtaan badda dhexdeeda iyo marinkii la maray oo ay sumcad dilaan dhulkii ummadda Soomaaliyeed baddii ummadda Soomaaliyeed ay sumcad dilaan oo maraakiibtii kale ay cabsadaan oo la yiraahdo aleelahay meesha lama mari karo lama geli karo halka ma geli karno ay dhahaan waayaan darro intada leeg Saciid Denina sumcad darro ka qaadaya uu tartamayay oo aan waayaan waxaan la madaxweynaha soo socdo waa Deni baa la waayii dambo aad baa rajo badan uga qabay oo waliba aad u ololeysid baan la u qalqaylido u haysid baan la laakiin hadda waxaa muuqataba ninkii inuu isbedelay oo shaqadiisii hore
shaqadan baa shaqadiisii hore la yidhi tiisii hore inuu ku laabtay baad moodaa sidaa awgeed reer puntland sumcadare ku tahay ugaarsiga maraakiibta xasanna ku xumeena hadday inaga tahay waxba kaga qaadi maysaan oo xasan waxaa weeya dee isaga ninka afduubtayba maaha puntland baad sumcad dilaysaan oo ummaddii soomaaliyeed baad sumcad dilaysaan oo dowladdii puntland ahayd baad sumcad dilaysaan oo ummaddii soomaaliyeed baad waxaa weeye midnimadoodii aad dhaawacaysaan marka waxaan leeyahay bar arrintaas hoos ha loo fiiriyo cid walba qusayso markabkaana ha la sii daayo intaasi marka laga soo tago puntland waa hanjabaysaa oo waxay ku indhadag yihiin golaha wasiirada anu ma garanayo meel ay ka shaqeeyaan golaha wasiiradani anu waxaa maay golaha wasiirada cid ay la shaqeeyaan ma garan mahaye golaha wasiirada waxay ku hanjabayaan waxaa weeye cid walba oo samaysay iyo halkaa samaysay oo sidaa samaysay waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciya hadda waaya adiga afduubka burcadda badeed ah ee waxaa weeye haystay markabka haystay haddaabaad leedahayba tallaabaan ka qaadaynaa oo markabkan wuxuu waday waxaa weeye annagana lagu soo weerar rabay haddee sidee waxa weeye loo kala garqaadanayaba lamaba kala garqaadanayaba marka waxaan leenahay golaha wasiirada ee xukuumadda saciid cabdulaahi deni ee baasho ay iskaga dhex yaacday ee xaalkooduna ilaahay ogaye marna aflagaa doonaya marna waxa weeye banaanka iska hahanjabaya waral madaryaalo ummaddaha isku dirina oo shaqadiina aqoonsada oo meeshan baashan dalkan ninbaa xukuma saciid deni la yidhaahdabaa puntland xukuma dowladda federaalka ee soomaaliyeed meel walbay tahay baan waxaa xukumaa ilaa iyo puntland ilaa iyo jubbaland oo ugu dambaysa cidda xukuntahay waa xasan sheekh maxamuud ee madaxweynaha we wixii siyaasadooda isku haysaan si kale ayaad u wajihi kartaane waxba hanjabaada iyo isku dirka ummadda iyo kicinta teeshinka iyo waxa weeye isbaaradan ka daaya iska daaya ayaan leenahay waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu halaydo